soddon iyo sideed mudane oo ka mid ah golaha wakiilada Puntland ayaa mooshinka xasaanad qaadista xildhibaanimo ka soo gudbiyay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobe Daareed isaga oo dalka ka maqan. Dhoobe Daareed waxa lagu eedeeyay inuu ka hor yimi xilka qaadistiisii gudoomiyenimo una wado sameynta maamulka dhanah Puntland sida uu golaha ka hor akhriyay xogayaha golaha Cabdirasaaq Xidig. xildhibaanku wuxuu ka hor yimi xilka qaadista golaha wakiilada sida sharciga ah ay ugu sameeyeen wuxuuna sheegay in xildhibaanadii xilka ka qaaday aan ahayn xildhibaano ay ahaayeen dad la soo ururiyay. wuxuu abaabulay dad isagoo sheegay inuu sameynayo maamul aan ahayn Puntland kana sameynayo gobolada Puntland qaybtood. wuxuu kaloo ku xadgudbay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7 ee ka hadlaya dhulka iyo soodeymaha Puntland inay yihiin laba taabtaan. wuxuu sidoo kale xildhibaanku ku xadgudbay qodobka 32 ee dastuurka dowladda Puntland oo ah qodobka sheegaya dhaarta dastuuriga. wuxuu kale sidoo kale ka hor yimi xilkii uu ku dhaartay iyo shaqadii xildhibaanimo ee ahayd matalaadda shacabka Puntland isagoo taas beddelkeeda sheeganaya burburinta Puntland ka shaqeynaya burburinta Puntland. wuxuuna mas'uul ka ahaa dhacdadii golaha wakiiladu ka dhacay 6 bishii 11 2019 dhacdadaas oo sababtay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare hantiyeed kadib markii uu maleeshiyaad iyo jamhad abaabulan golaha wakiilada dowladda Puntland keenay isla markaana uu diiday baaqi xildhibaanada golaha wakiilada iyo talo soo jeedintii guddiga amnaha golaha wakiilada dowladda Puntland. kadib eedaynta golaha ayaa cod u qaaday mooshinka xasaanad ka qaadista xildhibaanimo ee Dhoobe Daareed. 39 mudane ayaa u codaysay xilka qaadistiisa sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. yaa diiday ciddii ma jirto yaa ka aamusay cid ka aamusay ma jirto. mudanayaal fadhiga waxaa fadhiya 40 mudane 39 mudane waa ogol in xasaanadda iyo xubinnimada golaha wakiilada dowladda Puntland laga qaado Cabdixakiin Dhoobe Daareed. ciddii ma aysan jirto gudoomiyuhuna ma codayn sidaas 40kii ku dhan yihiin sidaas ay ansax ku tahay in Cabdixakiin Dhoobe Daareed laga qaaday xilkii xubinnimada iyo xasaanadiiba uuna hadda ku yahay qof shacab ah oo la xuquuqa shacab kale ee dowladda Puntland. Dhoobe Daareed ayaa hore u diiday xilka qaadistiisii gudoomiyenimo ee bishii November kalfadhigii uu Dhoobe furay ee 45aad ayaana maanta soo xidhmay isagoo xataa xildhibaanadii laga saaray. waxaana kalfadhiga kan xiga uu furmaya bisha Juun ee sanadka 2020. Maxamed Saal SBC Garow.